السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحدي عافيماد قبا أن يدير هجينيا والله شرفت بدن نيكن odaygahi wuxuu yiri waxaan leeyahay biyo bax degdeg waxaanan isku dayay inaan maskaxdayda maareeyo xilligan ku guda shiro hawsha kagasha saan arintaas aan uga kaaftoomo ma qancin karo oo waxaan daqiiqad dhammayn bay iga imanayaan buu yiri biyahayga taranku haweenaydii iyo xaaskayga aanan qancin waxa kale oo aan ka dheeraaday buu yiri inaan ka fogaaday inaan isticmaalo dawooyinka chemicalka iyo kuwa herbalka ee lagu adkeeyo ama dib loogu celiyo biyaha soo boodaya farsamo kale oo dhinaca maskaxda ayaan ku dadaalaya inaan sameeyo farsamooyinkii ayaan aad ugu guuldaraystay dhowr waxaan qabtay inaanu saaxiibanahay ayaa igula taliyay buu yiri inaan daawado TV-ga xilliga TV-ga inaan shito marka naagtayda ama xaaskayga aan u galmoonayo kadibna aan geysta buu yiri waxa laalayo waxa ay riwaayadaydu tahay ama aan ka helo si markaas anoo hawsha ku jira TV-gana daawanaya taasaa ku caawinaysa wuu igu yiri biyahaaguna dubbay u noqonayaan xaaskaagina waad qancin karaysaa maskaxaada waxaad ku xidhaa waxa daawanayso iyadoo markaa xaaskaagiina la qalwoonaya ama la galmoonaya oo hawsha ku jira TV-gana waxaad jeceshahay kayso waxa daawo hawshana wad arintaas ayaan sameeyaa buu yiri wax iga yimaadana haba yaraatee ma jirto ilaa wuxuu yiri marka dambe TV-ga aan iska baqtiyo marka arka xaaskaygu inay qanacday kadibna marka anigu muraadkayga iyo hawshayda aan dhamaysto arintaasi wax suuragalaba laakiin ma arin adigula talin lahaydeen baa buu yiri aad u mahadsan yahay haddii jawaabtiisa aynu nimaadno arintaas inniku maskaxdiisa uu lumiyo qaabku doonaba ha uu lumiyo dareenkiisa marka uu dib u celiyo oo xakameeyo dhinaca maskaxda wax dhibaato ah oo weyn kuma jiraan maadaama ay tahay waxa naftiisa waxba yeelayn waxaan isaga waxba u geysanayn xaaska waxba u geysanayn caafimaadkiisa waxba u geysanayn laakiin waxaanu kula talin lahay ninkan odayga waxaad isku daydaa inaad xaaskaaga marka hore waqti fiican aad siiso si dareenkeedu uu soo dhawaado oo marka hore dareenkeeda aad u soo dhaweyso waqti wanaagsan si adiga oo baashaalka iyo dhunkashada iyo xilliga dareenkeeda qaabkaad u kicinaysaa ay waqti ku filan noqonayso marka iyadoo waxeed iyo hawsheed iyo dareenkeedu si fiican u kacay oo iyada qudheedu soo dhawdahay hawsha bilowda haddii arintaas aanay ku suura galayna waxaad samayn kartaa maskaxaada qaabkaad u lumin karto waa caadi laakiin waa in marka aanay xaaskaagu boring ka qaadin qof meel kale ku maqan oo meel kale daawanaya labadii qof macaamilkoodii waa inaanay waxba yaraatee dhibaato aanay u geynayn ama xaaskaagu inaanay ku karaasanayn baa muhiima intaas ayaynu ugu soo ururaynaa talada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.